marka aniga waxa dalka igu xiray aad igu sii xiray dardaaranka aabahay aabe maalinta way soo dambeysay dib ismaanan arkin laba casho ka bacdi uu dhintay waa la qabtay waa la dilay waxa noocaas maalintii saddexaadna waa la tigay doon waxa la soo ogaaday in la dilay ciid yar umada loo farfaray isagii ragii kale meesha oo kaarayal ku jiideen oo meel yiraahdo Taalabuur bay ahayd la soo koobi karaa in dhibkii dhacay marka waxa igu xiray dalkeena ee jeclaysiiyay maalin kasto aan joogo runtii madaxayga aan marnaba ka bixin waxay ahayd dardaarankii aabbo aabba meeshii uu dhintay ee dalkeena ku burburay marnaba niyadeeda kama bixin inaan wax qabto marka dhalinyaro iyagu is xushay oo caafimaad ka soo bartay ayaa ii aniga hodhal ku jira waxaan maqalayda shaqada aad haysay gacanta ayaan kula qabanana filantiriga nagu shaqeyn dhalinyaradaas ma soo koobi karo aad iyo aad baan ugu farxay markaan arkay mana xulin mana doonan ma sha Allah marka ay dhalinyarada dalkeena joogta kulay dadkeena fikirkooda majority inta ugu badan aad bay uga duwan yihiin dad majuura aad bay majuuriyiin oo fahmaya wax oo aan maartay waxyaabaha qabyaalada xun aan ku dhex jirin intooda badan waxna bartay runtii marka walaalow caafimaadkii uu dhismay dhalinyartaas gacanta ku haysay alxamdulillah rabbil caalamiin sidii u ahayd casho dhaweyto wasaaradda caafimaadka Allah khayr ha siiyo nin sharaf iyo karaamo leh oo aan soo koobi karaanin wanaag iyo sharaftii walaaltinimada aan u hayo Saciid la yiraahdo amaanay marka hore inuu reerka dhufaa iyo tiimkiisa iyo wasiirka jooga ayaa runtii wasaageeyay hay'ad marka iminka hay'adii baa la wareegtay ma sha Allah dhowr 12 qof baa ka shaqeeya iminka oo lacag ku qaato meeshii shaqo abuurna ka dhac dadkeena caafimaad way helaan marka alxamdulillah caalami waxa ugu weynaan qabtay oo runtii taas bay ahayd iskuulka mar aan tagay way jirtay coodana la yiraahdo magaaladaas ka dhisan burbursana isagana waan dhisay alxamdulillah rag qolqol jooga iyo kuwa dibadda bariga ma shaqeynaa rag isku yimid markaan arkay meeshii tagay markay meeshii soo jajabtay oo dadna masan ku kacay tola ay ka kacay meesha carruurta ku dhimanaysa meesha taasna waa hirgalay marka macallimiintii qayladoon buu ku hirgalay marka lacagtiin soo ururiyay laba wiigo dhowdhow bay gal ma kaasna alxamdulillah rabbil caalamiin uu shaqeynaya marka walaalow lama soo koobi karo runtii inta ugu weyn intaas ay ahayd laakiin dadka yar yar iska dan yartaa aan ogahay aan garanayo waxba haysanin waxaan u kali karayo waan haystaa baa qof leeyahay markuu meel gaaro meel kale hadraawi ilaahay qabriga ha nuure wuxuu yiri hir markii la gaaraba mid labaad helaadsho ya lama hore dhashaaba hooyo lagu xasuustaa maanta halka taagan tahay waa ogtahay waa maxay talaabada soo socota iyo hanka Maxamed Nuur aad mahadsan tahay horta runtii maanta halkan joogo alxamdulillah rabbil caalamiin qurba cilmi qabo in badan waan joogay businesska horta waan jecelahay oo waa hobigayga waxaan jecelahay waxay ila tahay qof kubad ciyaaraya kale markay business noqoto hankayga marka ay noqoto waxaan jecelahay in aan dalkaygii aan dib ugu laabto aniga iyo asxaabtaydu aan dib ugu laabto wax allaale iyo wixii aan u qaban karayo aan u qabto aniga oo ka soo bilaabaya sida heesta geel u kala horeyso aan ka soo bilaabay marka hankaygu kulliba dalkaygii inaan wax qabtay iyo dib ugu noqdaa waa kaas ugu muhiimsan 100% Maxamed Nuur siyaasadda sidee isku yihiin niyo horta siyaasadda walaalow dadkeen horta siyaasadda ay wada baydheen ilaa qofka geel la jooga maariga la jooga ayaa horta waa jaamacad waliba khusuusan reer Soomaaliland aad muddo inay ka soo wada baxeen siyaasaddu laakiin khalad badan baa ku jira runtii marka la eego siyaasaddu waa subject la barto oo jaamacad loo galo oo maaragtay la barto laakiin iyagu si kale ay u adeegsadaan markaad eegtid iskaxdooda siyaasadda marka ay noqonayso wax qabad qofku horta waxa uu qabanayo waa inuu hore u soo qabtay waa in aqoon u leeyahay waxa uu qabanayo haddaad aniga maanta igu tiraahdo waxaad noqonaysaa tusaale ahaan
inaad diyaarada kicisid weligay maan kicin haddii maanta lay dhiiban ku waalanayo صح marka kulleyba haddaan siyaasad gelayo waxaan garanayo ayuumaan ka geli lahaa oo aan dadka dee wuxuu ku qabto noloshooda wax ka bedelo siyaasaduna ma aha walaal qofku profile doonayo oo inuu isagu isku dhiso laakiin waxa ay tahay qofku wixii uu yimi halku markuu yimi sida ay ahayd waa inuu kaga tago si ka wanaagsan waa inuu marka kii dambanayna sidaas soo dhigo oo maaragtay halka la gaarsiiyo marka anu dalkayga u socdaa siyaasaddan insha allahu tacaala haddii allah raxmaanka ah ka dhigo inkasta oo dee ay badda siyaasadda iminka aada u kacsan tahay haddana kolley ahamigeeda kama foga waad mahadsan tahay waxaan jecelahay inaan ku siiyo daqiiqad aad shaqaalahaaga bal hadda ugu mahad celin karto ilaah baa mahadle shaqaalahayga mahadda aan u qabo iyo mahadda aan soo jeedinayo aad iyo aad lama soo koobi karo wax badan baan isla soo marnay berigii covid ku dhacay dee shaqaalahaygu waxa ay ahaayeen markii dowladdu lahayd guryaha ku jira oo ha soo bixina shaqaalahayga ila shaqaynaya waxay ahaayeen dadkii iyo guryahooda intay ka soo baxeen dadka u adeegayay maasha Allah marka abaalmarin insha Allah dhawaan ah ayaanu samayn doonaa shaqaalaha oo dhan intii waxooda shaqada si fiican u qabatay ee soo baxday aad xusayso aanu xusuusno oo maaragtay abaalmarin aanu siinaba dhacaysa insha Allah dhawaan marka waxaan leeyahay dee halka hawshaada dan ka sii wado maxamed nuur cabdi mire ama nuur cabdi mire aad iyo aad baad mahadsantahay jazaakum Allah khayr aad baad mahadsantahay experience-ki iga soo maray marka shaqaale la qaadanayo oo kale Soomaali baa ka shaqayn jirtay qof Soomaaliya buu ahaa dib baa ka soo baxday oo reer hebel iyo qabiil iyo waxaas waan ka bedelay Bangladesh baan keenay shaqada sameeyo soo qaadataan shaqaalaha miyaa marka la qaadanayo dabeetana Bangladesh saad ku doorataa shaqaalaha kelmadda ku weydiin saan ku doorano iyo dibkii iga soo maray markaasna okay ma wasaxay maxamed nuur waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo kelmad aan doonayo in aan ka helo bal xog shaqaalaha ku shaqeeya marka aad doonayso inaad shaqaale qorato sida aad ku soo doorato iyo sida aad shaqaalaha aydan ku qaadataan sax walaalo waxa dhacday horta shaqaale markaad company haysid business maaragtay manage gareynaysid laba qaybood weey ko inaad businesskii hore u wadid iyo in aad maaragtay maintain garaysid businesska shaqaalaha sida aan u soo qaadano specifically haddii aan isdul taago ugu horeyn markii aan shaqada bilownay inaan Soomaaliya hayay shaqaalaha qaadan jiray oo foomka wadi maaragtay shaqaalaha wixii loo cidii wanaagsan soo qaadan jiray oo HR ka shaqayn jiray dib baa ka soo baxday oo feedback aan helay reer hebel buu Somaliland waa hadalkii dadkeen ay iska oran jireen dadna dibtaas soo baxday in isaga waan ka bedelay marka inaan Bangladesh ka timi baan u dhiibay iyadiina Soomaalideeni waxa igaga soo noqday inay yiraahdeen Soomaaliba shaqaaleysiin mayse dad kale oo dadkooda ayay shaqaaleysiinaysaa dabeetana iyadiina waan ka bedelay gabadh cad oo Kirista ayaa keenayo taas ayaa iyaduna gacantaba ku hayso dee marka waxa weeye qofka Ingiriiska marka waxaad ka nasatay labadii arrimihii jaaliyadii kugu badnayd deegaankan oo Bangladesh ahayd iyo taad ka soo jeeday oo Soomaali ahayd oo labaduba ay eedayn ay ka timid waad ka nasatay oo aad baan uga nastay taa waxaa sii raacda marka complaint ku dhaco haddii hore doonad wixii baadhid wixii xumaaday aduna ama client kii baan si fiican loogu shaqeynaa complaint ka yimi ama dawladda lafteeda complaint sameynaysa doona dadkii marka loo qabanayo adoo loo yeedhiyo la fadhiistay hadii qofka ereysidna aad ereysid ama aad discipline garaysid isaga lafteeda waxaan u dhiibay sidaas oo kala soo dhacday marka isagana qof kale ajnabi marka isagana waxaan u dhiibay nin ka yimi Cameroon oo aan isagu de maaragtay aan dhinacna u leexanayn marka waxa ay u nahayneen waxa weeye businesska qayb ka tahay in aad mar kastaba
ogaatid halka noqdo ducufku ka imanaya aad kabtid kabtid marka alxamdulillah waxaan taaganahay heer aan iminka maanta haddaan iska tago anigu aad aaminsan tahay in shirkadii soconayso aan u baahnayn in joogistaadii toontoona marka alxamdulillah waxaan doonayaa inaad noo ogolaato in aanu xafiisyadaada tagno oonu isla kor taagno balada kamarada aanu shaqaalahaaga ku shaqeeya aanu kelmada weydiino si aanu programkayaga u buuxsano adigoo naga raaliya maya waa fasax baad u tihi السلام عليكم وأنا سلام يا دمانتين مقعي عبد الرحمن عمر وحان كترسنا هاي كمباني سوشيال كير وكمباني كشقية دريال كدتك واوين يدتك شلعسان كنول عرقان إنجريسكا أساسها كمباني وحاويا محمد عبدي جامع عمري وحاو كدورتي كشقينتا عرنتان كاركا إنو بالشدة ديبو حقو عليو إسلام مركاسنا ودتك شلعسان كومينيتي كميدا daryeelka loo fidinayo ay qayb ka noqdo arintaas oo arin uu jecel yahay isaga shakhsiyan nafsadiisa isla markaana qayb ka ah waxyaabaha uu soo bartay waxbarashadiisa iyo backgroundkiisa intii wadankan joogay uu ka baranayay uu bartay company-gan social care waxa uu ka shaqeeyaa waxyaabo fara badan oo ay kamid tahay caawinta dadkaas jilicsan iyo daryeelka dadka waaweyn aan sheegay anigu khaasatan shakhsiyan waxaan qaabilsanahay compliance-ga ama hubinta in shaqadii loo qabanayay dadkaas waaweyn iyo dadkaas jilicsan ee company-ga uu shaqeeyo in shaqadii siday ahayd loo qabtay waxaan ka shaqeynayay in muddo ah hadda si fiican bay shaqadani u socotaa qaybtan waliba galbeedka magaalada London si fiican bay u shaqeysaa waxaan la shaqeynaa degmooyinka Hillydom iyo Ealing oo kamid ah degmooyinka galbeedka magaalada London degan ama badhaca shaqo badan oo la xalibaa qaybtan ka socota waxaan rajaynaynaa inaan si laban jibaarno sanadaha soo socda shaqadaas iyo daryeelka loo fidinayo dadka jilicsan ee ku dhaqan galbeedka magaalada London. So my name's David Martell and I'm the operations director for the Social Care Limited. In my day-to-day activities running the social care from Ealing, we're managing two main contracts with two main local authorities, Ealing and with Hillingdon. And essentially, we're overseeing and ensuring the quality of the care services that we provide by ensuring that all of our care workers are carefully matched to our service users. My main role is the recruitment and processing of applicants who wish to work in the community with vulnerable adults. We always make sure that our recruitment is fair. We promote a positive attitude and we promote positive discrimination and everything's done in a fair and unbiased manner. We recruit our candidates based on their abilities, their availabilities and the requirements of our service users who are paramount to our needs. بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دوادا Care Solution Bureau شركتان oo muddo imika shaqeynaysay UK ahaana aanu branch badan ku leenahay anigu waxaan u qaabilsanahay qaybta xisaabaadka shirkadda oo aanu haysano in ka badan 400 oo shaqaale ah hadday noqoto payroll-kooda hadday noqoto invoicing-kooda iyo wixii lacag ah ee aanu ka dalbanayno ama aanu invoice garaynayno cidda aanu u provide garayno service-ka hadday shakhsiyaad noqoto iyo haddii ay noqoto council-ka Taa Hamlets khaasatan xaafadda Taa Hamlets marka waxaan leeyahay kusoo dhawaada shirkadan oo runtii muddo badan imika service-ka u haysay bulshada ku nool London khaas ahaan qaybtan aanu ka shaqeyno oo ah East London ama Taa Hamlets area
waan idinku soo dhaweynaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد وحلة عبد الرشيد هيرد. كنا نمك وحنا جوجنا حرونتا كير سولوشن بيرو إيست لندن. هدان كمبينيجا إنير عن كل با رجي قريبا فهي كمبينيجا وحيهاي وحوي وكي ايجنسي. أدو إلى شام قلاقف با وشقية yo charchar waxay dadku u badan yihiin waxa weeye dadka reer Somaliland iyo Bengali iyo dadka kale ajnabi way noo shaqeeyaan marka waxaan sameeynaa adigu waxaan ku base garaysanaa shaqadaan qabano in aanu xaafada aanu dadka shaqaalaysiino oo shaqeeyno waxa noo yimaada dad fara badan oo baahan oo u baahan inay shaqo helaan. السلام عليكم مبعي هو فاطمة وحنا نشقيا للسوشيال كير وحنا كأهاي برانش لاين مانجر أنا هاي مركا وحنا لشقينا إيلين إيو هيلين دمبارة وحنا لشقينا وحنا لديل قرينا إيلين كونسل سوشيال سيرفيسز إيو هيلين دم لبضبا كيرسكا أنا shaqadaydu waxay tahay inaan shaqooyinka qaado la xiriiro kansalada haday email noqoto haday telefoon noqoto waxaan kaloo la xiriiraa hadana even though aan haysano coordinators hadana shaqadeydii hore baa coordination ahayd marka waxaan caawiyaa labada qof ee ka shaqeeya coordinationka مثلا shaqada marka aanu qaadno dadka sida loogu dirayo qofka loo dirayo inaan ka wada hadalno oo u dirno specific person iyo qof walba wuxuu ku fiican yahay. nuur intii aynu hadeerta wada sheekaysanayna markaynu inaan barnaamijka bilaabeen waxaad ii sheegtay odaygii ku keenay wadanka cali xasan cumar in uu tala ku siiyey taladaas oo ay ahayd tala wax ku oola muxuu kugu yiri kelmadii uu ku yiri ahayd waxana akhri بالكلمة نoo sheeg علي حسن عمر adeerkay Allah oo naxariisto walaalow saaxiibkana wuu ahaa runtii nin aad u sheekaysana buu ahaa tacab badan iyo dadka soo galiyay علي حسن عمر wuxuu igu yiri maalin bariyahan nimi dardaarankiisa ama dibaartay soo igu sheegay waxay ahayd maadaama aanu nin experience qurba in badan joogay adna din dhalinyaro soo gashay saaxadda TV waxay aad aragtana akhri qoraal ah ama magazine ha ahaato ama book ha ahaato ama wax doonta ha ahaato akhri qof ka horeeyana raac oo aad higsan karto ama wadaad ha ahaado diinta kaaga horeeyo ama maxaa la yiraahdaa tacliin kala hawo cilmi kaaga horeeyo qof ka horeeya raac aad iyo aad bay waxtar iigu tahay qof wax la siiyo wixii ugu wanaagsanaa ayuu siiyay adeerkay xaaji cali xasan cumar qabile Allah u naxariisto waad ka faa'iiday hadalkaasi anaguna imankaan guntanayna nuur adiga hadii dardaarankaasi lagu siiyay oo adeerka dardaaranka ku siiyay dhalinyarada kula midka ay kuwa ka yaryar ee qurbaha jooga aad dardaaran bay ka rabaan maanta dardaaranka aad siinayso dhalinyarada ama jiilasha soo socda ee UK ama qurbaha ku nool waa maxay aad walaal mahadsan tahay waxa aan siin lahaa waxa ay tahay inta aniga la siiyay baan aniguna aanu si DV lahaa qurba marka la joogo dib badan buu leeyahay ala soo koobi karaan dhaqankaaga diintaada iyo sinjiyadaada marka aad u fiirsatay cadawgu ku yahay qurba meel sahlan ma aha hase ahaatee reer UK dadka jooga UK degan Chinese aynu haysano ma qaba inay adduunyada meel kale ka jirto qofku waxa uu doonayo inuu gaaro waxa aan qaba inuu ka gaari karo UK hadduu siyaasad rabo hadduu tacliinta rabo lafteeda wax kasta way inoo taala UK kali ah waxa loo baahan yahay qofku waxa uu jecel yahay hadduu doonayo inuu siyaasadda galo
hadduu doonayo inuu businesska galo hadduu doonayo inuu tacliintiisa dee kale ay maaragtay fiilka uu ku jiro ama dhakhtar inuu dad fiilka uu doonayo galo ama uu ku jiro in kuwaasi noqdaan qoladiisa uu ku abtirsanayo markaa waxaan dardaaranka aan u jeedinaya dadka waxay tahay janiskaas aynu haysano halluminina qaata maxaa la yidhaahdaa doona oo weliba aanay hataa markaynu UK ka hadallo dhalinyarada UK joogta rag iyo dumarba janiska ay haystaan aanay xitaa dadka kale ee qurbaha inagula noole aanay haysan ma jirtaba runtii wallahi ma jirto marka dhinacyo badan markay waayo anu European-ka beri waan ka yara shaqayn jiray meelo badan baan maray Jarmalka iyo Sweden iyo Norway meelo badan waan tegay marka aan eegay qofka Soomaaliga meeshan halkan aynu joogno meel uga wanaagsani ma jirto waayo diintaada waad haysan kartaa European-ka kale meel masaajid iyo mar aad bay ugu yar yihiin iminka halkan aan deganahay aan joogno xaafadeeda tan 7 miles square way masaajidada ka dhisan lama soo koobi karo koona kasta masaajid baan ku leenahay marka chance ka aynu UK haysano anigu dardaaranka quraan idin soo jeedinaya waxa ay tahay ka faa'iideysta oo ha noqonina kuwa hadhowto isku ciilkaambiya hana ilaawina meeshii aad ka timaadeen dalkiinii ama abayaashin ka yimaadeen aad ka soo jeedeen ha ilaawina dadkii anigu aan markaan imi ilaa xilli ila yimi ama dee iga dambeeyey run ahaantii alxamdulillah anagoo maskaxiyan dee dhisan baanu nimi wax badan baanu arkaynay haddana dee qurbaha iyo awoodda ka jirta baaxadda awgeed dad badan bay qaadatay daadku la tegay kuwii ku dhashay daweyn naga duwan yihiin halkan ku oo noloshii fahmay oo dadkii dhex galay way ka duwan yihiin kuwaasoo iminka ilmahayga iyo anigu kala jaad baana eega aabayaashiin iyo hooyooyinkiin ama awoowayaashiin wixii ay soo mareen tacliin dad baahantihiin inaad wax ka barataan iyaga ayaa tacliin idin ah halka aad nimcada aad ku jirtaan maantana iyaga haddaanay jirin ama aanay sacrifice-ka intaa leeg idiin soo gelin maanta maydan haysateen waxaan kula talin lahaa dhalinyarta dalkaagii aad ka soo jeedo meel kastaba meeshu doona ha ahaado ama Somaliland ha ahaado ama Soomaaliya noqo oo soo eeg dadka jooga dadka wax badan baa kaaga soo kordhay marka aad dalka tagtid waxyaabo badan baad arkaysaa aanay dadka localka ah jooga oo jaamacad asaga jaamacad way marka jaamacadaas waxaan oran lahaa dib ha loogu noqdo insha Allah ta'ala waxyaabaha hamiga igu jira waxa ay tahay qorshayntii dadkan qurbaha jooga sidii loo celin lahaa insha Allah ta'ala ayaa daasta hamigaasna waa igu jira insha Allah ka qariyo markii laakiin dadkaas waxaan markasta aad ugu celcelinaya time-ka aad haystaan ka faa'iideysta hana ilaawina meeshii aad ka timaadeen iyo dalkiinni iyo dadkiinni iyo diintiinni toona maasha Allah aad iyo aad baan nuurow kugu mahadnaqaya waad mahadsantahay daawadayaal intaasi waxaan runtii kusoo afmeerayaa barnaamijkii documentariga aanu ka duubaynay dadka wax qabsaday ee ku nool qurbaha ee ka mid ah jaaliyada reer Somaliland jaaliyada Soomaaliyeed jaaliyada Djibouti jaaliyadaha dhammaanba aanu isleenahay waa la gaari doontaan kamarada aniga injineer Shaqale oo jecel inaanu mid walba ugu tagno goobtooda iyo meesha ay joogaan inta aynu barnaamijyada kale ku kulmayno wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh